barnaamijka afur walaalkaaga Soomaan oo loo sameynayo bulshada kuwooda aanan awoodin helidda waxyaabaha ay ku afuraan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan isla markaana ay sameynayaan ururka horumarinta dhalinyarada ee Tusmo ayaa galay maalintiisii 6aad waxaana maanta afran loogu sameeyay dad gaaraya ilaa iyo 300 oo qoys agaasimaha Tusmo Media Group Abdikaamil Yusuf Maxamuud oo maanta kormeer ku tagay goobta dadka afranta loogu sameeyay ayaa ururka horumarinta dhalinyarada ee Tusmo ku bogaadiyay sida ay bulshada ugu sameeyaan barnaamijka afranta waxa uu ballan qaaday in Tusmo Media Group ay door muuqda ka qaadan doonto barnaamijyada lagu caawinayo dadka danta yar. Tusmo Media Group oo kaashanaysa urur dhalinyaro oo dhanka kale magac wadaag aan nahay waxa iska kaashanay in u sameeyno afur tirada dadka intaas la eg oo u badan dad barakacayaal ah oo aan awoodin in maanta oo dhan markay Soomaan ay iska bixiyaan afurka marka Ilaahay noo lagu guuleeyay hawshan khayriga ah ana wasi wadi doonaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogto waxa ugu baaqayna inay ka qayb qaadato waxa jira barnaamij Sahal Radio ka baxo idaacadaas oo Tusmo Media Group kamid ah oo la yiraahdo walaalka Soomaan afuri qof walbana waxa uu ka qayb qaadan karaa in barnaamijkaas uu ka qayb galo waxa uu talagalay walaalkiisna oo siiyo Tusmo Media Group iyo ururka dhalinyarada waxa ka kaashan doonaa anagana in bulshada meel kasta joogta afurino oo deeqda gaarsiino insha Allah taala. Gudoomiyaha ururka horumarinta dhalinyarada ee Tusmo Muumin Xuseen Maxamuud ayaa tilmaamay in wali ay wadaan ololaha bulshada intooda dhibaataysan ugu sameeyaan afurin inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo TV-ga ee Tusmo oo barnaamijkan suurta galiyay inuu qabsoomo iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waan u mahad celinayaa dadkan Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin in la garab istaago gaar ahaan dadka danyarta ah ee degan duleedka magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba nawaaxiga ee gobolka Banaadir dadka degan waxay u baahan yihiin bisha Ramadaan in maaragtay la garab qabto ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay dadka Soomaaliyeed ee danyarta ah ee aanan awoodin afurka inay maaragtay ka qayb qaataan ama ay caawiyaan dhalinyarada caawinaysa kala duwan ee anaga aan qaybta ka nahay in garab la siiyo si barnaamijkaas oo u qabsoomo. dadkii ka faa'iideystay barnaamijkan afrinta ah ayaa ururka horumarinta dhalinyarada ee Tusmo iyo TV-ga Tusmo ugu mahad celiyay sida ay ugu taagan yihiin caawinta dadkooda. walaalahay dhalinyarta waa mahadsantahay afur wanaagsan na siiyeen waana wanaajiyeen waana sharafeen Allah sharafo ummadan inta joogdan masaakinta qaxootiga afurta waa u baahneed Ilaahay wiin waahida ajar iyo xasanaadna Allah idinka siiya. Umar Boole Tusmo TV